sheekh bili waxaan rabay inaan wax ka weydiiyo mucaaradnimada waxay diinta islaamka qabto maadaama aan la socotay inay wadankii dowlad ka dhalatay qarannimadii soo noqotay waxaa jiro maxaa la yidhahdaa rag siyaasiyiin oo mucaarad sheeganayo oo dowladda mar walba lagu hadhax ku haysto oo shacabka niyad jibinayo arrintaas diinta islaamka maxay ka qabtaa shacabka soomaaliyeedna ragga dadkaas mala dagaalami karaan mushkiladda hataa waxay tahay mucaarad iyo muxaafadba waxa weye shacbiga ay adeegsadaan dadka waxay u arkaan masalada marka hore aan ka hadla mucaaradka arrinta mucaaradka asalka waa iska ikhtilaaf ra'yi wey diinta islaamka waxay qabtaa ikhtilaaf ra'yi laa yufsidi lilwadiya dhulka ummadda wadanka dadka dhan oo ka dhexeeya afkaarta waa la isku khilaafi karaa oo xataa afkaarta diinta iyo masaa'ilka fiqiga la isku khilaafi karaa laakiin masalada mucaarad maadaama oo qaanuun dawli uu jiro ayaa mucaarad loo bixiyey adduunkana way ka jirtaa meel kasta waxay leedahay qolo mucaarad ah marka mucaaradkana asalkiisa waxaa la rabaa inuu wax dhiso wax inuu dumiy maaha maxaa yeelay dowladdu waa bashar naftigeeda qaladaaday gelaysa haddii la yidhaaho anaga waxaan aragnay dowladaha dictatorka ah oo wadamada carabta soo xukumi jiro hadda xukumaan oo askarta ahaayo waxyaabaha wadanka asbaabaha u dumi waxaa kamid ahayd cid mucaarad ku eed ma jirin waxay rabaan ay samaynayeen wamaa uriikum ilaa ma ara fircoona lagu qabsaday wuxuu yidhi dadka wuxuu yidhi aniga waxaan ii sheegalay qaata wamaa ahdiikum ilaa sabiili rashaad jidkayga marow yidhi walidaalika mucaaradnimada faa'iida dhinac baa ka leedahay waxay u leedahay ninka hadduu u maleeyo asaga inuu wuxuu raba iska samaysto oo dadkan heesa u daaro uu yidhaaho heesahan le qaada sidii lagu yaqiinay kacaankii iyo dowladaha dictatorka ah oo ummadda jiif ku rido tan hadda aan dhaxalnay keenta marka taas waa asal marka dadka iyo mucaaradka ay u arkin laakiin mucaaradka halkala saaro mucaaradnimada waa wanaagsan tahay dowladdeena u ilaalinaysaa dowladda haddii faraha laga qaado waxaa laga yaabaa inay istiraah waxaa harta ka samayso ummaddan berri ummaddii meel qar ay ka tuurto ummaddan waa ummad muslima gaaladan waxay u samaysteen mucaarad inay ku ilaalsadaan xuquuqdaas oo beri la yidhaaho xisbiga mucaaradka hadlaya wuxuu leeyahy waxaa dowladda ay ku tiraa qalad wey waa samaynaysaa shalay waxaa maqlaya faransiiska ayaa qolada mucaaradka ah waxay dhahayeen dowladda maxay xuduud talaanig u xir weyday maxaa dhacay cudura talaanig ka dhacay xuduud waa inay xirtaa markay maqashay xirtay mucaaradka u sheegay walidaalika inay saas isku kaashadaan oo waxay mucaaradka sheegaan oo qaladna dowladda inay ka kaafto oo ay tiraaho war meeshaas ummadda way dhibaysaaye haddaan anaga arkin dadkina kursiga rabaa arkee aan iska daboolnay dhahaan laakiin hadday ka dhaga furteysmaan waa dowladda naftigeeda waxaan leenahay ilaahay ka cabso ama mucaaradka oo asagana kursigaas oo ku koran rabo oo ummadda dhan been u sheegayo ama inuu dumiy rabo dowladnimada aan ahayn aan dowladnimo aan ka ahayn oo rabo asaga aniga haddaan kan aniga aan ku cunin waa ku ciiday daata waxaan leenahay ilaahay ka cabso makaa yeelin taas marka shacbiga waa la wareeriyey dowladna waa wareerisay mucaaradna waa wareerisay walidaalika shacbiga waxaa la rabaa inay culummadu usoo baxaan ee u sheegaan waxa jira oo dowladda naftigeeda ee ogaatay in way yacal dhihi karo wax yacal lagu dhihi karo maxaa yeelay haddii kale wax yarta iska sameynay wax yarta iska sameyn kartaa sida mucaaradka walidaalika hadda waxaa arkaysaa propagandada dowladda badan mucaaradkay ku jeedisay inta aragna mucaaradka halaga ilaaliyo wada xataa inay tiraah wadanin ma ihid waa dhibkeeda leedahay waxaa la rabaa marka in shacbiga ay foojignaadaan ay dhahaan dowladdana ay saas dhahaan mucaaradka in dhahaan maya ay saas u kala dhiciyaan ama hadii kale shacabka wuxuu noqonaya aala la adeegsado kanna shalay waa ku adeegsaday kanna waa ku adeegsaday marka arrinta in saas loo fahmaa wanaagsan mucaaradka iyo igana iyo muxaafadkan iyo dowladda waxaa la rabaa inay xiriir ka dhexeeyo ay wada hadlaan wadankan cid ka xigta ma laha cidankan gabadha kan qamrada cabo wadanku wuxuu kala leeyahay xataa wadaadada waxaan dhahnaa anaga diiwandayga wadanka asxijinina wadanka gabadha qaawan sidoo kale gabadha wadankaas mucaarad iyo muxaafada asla leh marka inay dantooda ka hadlaan ay yidhahan war maxaa naga qaldan aan wada fariisano laakiin qof kale hadduu inkiro balaayaa soo socoto marka balaayadaas waa in shacbiga ay ka foojignaadaan dowladdana loo naseexeeyo la yidhaaho war arrintan wadanka saan qalalaasu ku imaanayaa halees ilaaliyo mucaaradka in la yidhaho war waxaa ku socotaan wadanka ayaa dumayey wadanka gaalo badan oo cadow ku leeyahay in lees ilaaliyo waa hadday saas ahayn ee daacad iyo qalbi saafi u jirin oo nin kastaba ninka kale uu rabo inuu brograam ku sameeyo annaga ma nihi dadka brograamka lagu sameeyo oo brograamka la gashanayay ama kuwa hadda sheegay oo ah laaluushkil in la siiyo beri ayagoo indhahooda qabsan qabiil ahaan ninka ku ayidayo ama wasiira adeerkiisa ah ku ayidayo ama mucaaradka in adeer uu yahay mucaaradka la jiraa in adeerkiisa mucaarad ila taas waa mushkilad wadanka dhan halis ku ah walidaalika masaladaas waxay u baahan tahay akhi barnaamij badan iyo tawjiih badan laga sameeyo in yiraahdo wadankan maxaa dan u ah cid ka xigta mala wadankan dowladda maamulka loo dhiibay beri waa baxaysaa too kala imaanayso inaan aan wada hadalno laakiin waxa oo muaqat ah
inaan dad kumeel aan ku heshiina afar sano la qabto walidaalika dastuurka laftigiisa naga qaldan haddii xaqiiqa laga hadlaya marka in oorku la isku kacsado maaha ilaahay laga cabsado waddankaas ha loo turo mucaarad iyo muxaafido waddanka u turo saasaan leenahay annaga